ku yaala SBS yar oo loogu talagalo hooyada dhallaanka asaguna malahan qaybihii adeega ee asaasiga ah ee qofka bilaadanka nolosha u ahaa sida malahan dhiig laguma shubo qofka dhiig baxayo malaha adeegii dhiig shubidda malahan ambalaas joogto ah oo ifridii ka dafta haddii la helo ambalaasta oo waqti badan waxaa naga saacida hay'adda meris hadday naga saacido waxaa soo marteen dhulka ballaaran oo soo marteen oo indhiina ku soo aragteen waxaad dareemi kartaan qofka garaaba ee dhiig baxaya waxa uu ku mudan karo asbuucan gudihiisa waxa laga qaado gabar meeshaan ilaahay baa oofsaday waxa way Allah uuntay ka bacdina Allah oofsaday walaakiin waxay u baxday dayac iyo dhibaato ka jirta deegaankeena waxaan rabaa inaan marka raaciyo annaga waxaan raacsanahay hobby haddii ilaahay yiraahdo hobyo korna hoosna waa ula hadalay korna waa ula hadalay waxa weeye qoontadayada xooggeeda ayaga aadaa waxaan rabnaa maanta waa la wada joogaa haddii alla yiraahdo meesha wax ka soo bixi jireen iyo wasiiradii u koreeyay idinka ah waxbarashadii baad maanta ku maaragtay hadda ragga socdaa maanta uu matalayaa waxaan rabaa haddii ilaahay yiraahdo cadka budleeyahay haddii alla yiraahdo idinkuna dawladii baa ka turjumaysaan anigana mas'uuliyadda intaas ay isaadhay baa idur saaran waxaan rabaa cad tuuriya oo haddii alla yiraahdo wiil damaada inta loo soo dhiibay la yiraahdo deegaanka intaas haddii alla yiraahdo la ku tuur maanta ka bacdi ma qaadan doono inaad dhageysataan qoondada aan leenahay oo budget cad inaan helo ha yaraata haday rabto Soomaalidu waxay tiraahdaa xoolo quureed waa la qaataa laakiin cad quureed lama qaato maanta ka bacdi cad quureed ma qaadan doono haddii ilaahay idanka ka dhigo adduunka waxa jira isku tashi waxa jira 40kii madaxweynuhu sheegay waa samaysanaynaa si kasta nala gasho waxaan rabnaa 60kii haddii alla yiraahdo maamulkaas cusub oo maanta galmudugta cusub inaan helo si dirta u helo mas'uuliyadda gobolka maadaama ay saaran tahay lix qodob oo laga hadlay lixdo inay jiraan waa wax in saldhig loo baahan yahay in biyo loo baahan yahay in caafimaad loo baahan yahay in bacad celinta wax laga qabto loo baahan yahay in dugsiga loo baahan yahay dhammaan waa wax laakiin mid aan waan jeclaa waa ka tagteen in wadada wax laga qabto kuwina darsan wadada heeco in wax laga qabto kumina darin ay qofka duu dhibaato ka badato wax badan buu ilaawaya anaga waxyaabaha aad qorteen waxaan la macaamil doonaa wasaaradaha iyo hay'adaha waxyaabaha hay'aduhu ku shaqo leeyihiin toos ma baari doonaa midna hadee waxa u taagan hadda dugsi sare haday tahay iyo haddii la ballaarinayo wasiirka xogeenkii wasaaradda waxbarashada la socda taas halkaas aan ku reebayaa wasiirka u deynayaa inta kalena laakiin waxaa wadada heeco xalay rag baan soo soconay cabaar sheekaysan si wax uga qaban karnaa baali haddaan isku tashanno ilaa bandarseed ilaa afbarwaaqa ilaa budbud aniga waxaan qabaa inaysan nagu qaadan karin 15 maalmood waa inay fikirka aan qabo sababta waxa weeye gaariyaal iskarooyin baan leenahay meeshaan waxaa noo yaala dhagxaan waxaa noo yaala cusbo haddii lagu shubo ay noqonayso dagiilin meesha noqonayso oo aan nin naga gadanayn oo taal loola iska dhooban inaan guddi inta u samaysano waan gaalkacay tago labada saddexda guddoomiye Dajimaale Afbarwaaqo budbud iyo xingod iyo rag ganacsataan tasoonayn waxaan go'aansanay xalay barnaamijkaas sida ugu dhaqsaar badan u bilowno markii la arkay annagoo bilaabayna meesha bilowno waxa ku dayan doona oo soo gali doona barnaamijkaas dad badan oo warmoogaha iyo kuwa ka baqay inta wan imaanayaan barnaamijkaas waxaan jeclahay in aan u wada istaagno oo nafi maalma warwaayo 30 kilomitir oo ka dhib badan 180 kilomitir oo baawur leeyla oo fawdada baawurka tuu soo mari karin dadka ku nool si wax loo geeyo ama wax u gaaran way adag kaaraysa taas aan qorsheed galno hooyo qorsheed waa la galo maanta way dhamaatay haddii aan wasaaradda waxbarashada nahay dhulkii hadda aan soo marnay qolba meel buu ku fiicnayd deegaanba wax buu ku fiicnaa waa soo marnay nimankii reer Bitaale markii educationka aan fiirino nama isa farxad gelin runtii nama farxad gelin
jiijiid badan oo ilaa iyo islaax iyo maaragta gar leesu fariisto badanaa jiray sidii arday lagu heli lahaa laakiin waxay nagu farxad geliyeen waxay suuro geliyeen hool iyo iskuulkaasoo kale hool la eg oo kun qof ay ku shiri karto oo hoolka nabadda la yidhaahdo oo loogu talagalay inay ku wada hadal siiyaan meel kasta oo khilaafad uu ka dhaco galmudug qaadina kara meel ahaan meesha ku yaalana meel magaalada ka baxsanoo u baahan kaliya hadda kuraastii iyo mikrofoonadii iyo dariishadihii kaliya u baahan wax fantastic ay nala noqotay ilaa galabnimaan gaarnayoon wax kasta maaragta aan ugu farxnay wixii maaragta ka dhimanaana ayadana baaqiyadeeda waa dirnay inaan madaxda gaarsiisnana waa soo guddoonnay marka aad iyo aad ay nimankaasi u mahadsanaayeen waa soo soconnay deegaanadii kale oo aan soo marnay ayagana sidoo kale laakiin waxaan idiin sheegayaa haddaan wasaaradda waxbarashada nahay deegaankan qaybta waxbarashada markii aan aragnay ma aanan filayn waxa aan kala kulannay dhowr arrimoodba sida ardadu u joogto waa ku faraxnay sida ardadu ay isugu xigto galaaska 8aad ilaa iyo galaaska 1aad ay maaragtay ay isugu xigto oo aysan u lahayn gaab soo dhexgalay aad iyo aad aan ugu farxnay muuqaalka iyo labiskooda runtii waana farxad gelisay daal badan ayay maaragtay naga saartay waxayna la standard tahay iskuullada annaga wasaaradda waxbarashada waxaa kaalinta 1aad noo gala Gurceel iyo meesha Cabdulwaaq la yiraahdo markiskana ayaga ku tartama bilicda iyo tiradana ayaga ku tartama marka booskaas oo kale ayay noo gashay meesha la yiraahdo budbud waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waftigan uu daafan yahay in qorshihii madaxweynuhu idin soo mari waayey inaan matalo idin soo maro fileexantiisma mooga haddee mustafa lagle caawinaad looga baran oo maaragtay badal ma keeno laakiin madaxda waa idin baray wixii la ii doorto in ku matalaya waxay ahayd in wasiiro deegaano kala duwan ka yimid iyo madaxa idin yimaadaan in la idin barto deegaanku xisaabta galo maanta budbud ay iskuulkeeda lamaroo noqdo wixii intaa ka dambeeya calaf iyo magac baa u joogtaan marka khiyaartii lahayd wargeedka goolka xabubu kalooga halkaas iskaga harto markaan qorqor agtiisa taga waxaa leeyahay burkii dheeraa ciidda badnaa ee aadka u sarreeyay iduu daaqayeen baldada lahaa dadka awliyada lagu siyaari jiray daarada haraawr iyo ay u dhawaayeen balladii quruxda badnayd iskuulkeedii lambarka 1aad u galay madaxweyne sidaas isagoo wasaaradda warfaafinta samaysa ceelal lama keento caafimaad lama keento wasaaradda warfaafinta taasi keenta